قاموسكي نيو جنريشن كقولتين وذاكرة صعب هلا والله أنا لا صعبيو جامعة نيو جنريشن فرعيد القبيلي ayaa ardayda sanadka sugaysa imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiyada sare ee degmooyinka Gabiley Wajaale iyo Arabsiya u qabatay aqoon kororsi ku aadan qaabka ay ula jaan qaadayaan jaamacadda New Generation isla markaana halkaasi ku guddoonsiisay shahaadooyin ay ugu tala gashay muddadii aqoon kororsigu socday munaasabadan oo ka soo qayb galay barasaabka gobolka Gabiley guddoomiyayaasha degmooyinka Arabsiya iyo Wajaale iyo xubin ka socotay aqalka baarlamaanka Somaliland ayaa ka qabsoontay xarunta ay New Generation ku leedahay gobolka Gabiley adigoon dhanka la dayin ha ka daay rayskiyo durdurkiyo tacliinta ku soo durg New Generation diiwaanka horogala waxa ku diyaaro duruustiyo culuntiyo ku baraya dooda barayaal hal dooro dadku wada amaaneen anigoo afka ardayda turjumaya cilmiga ka faa'iiday حقيقة وعديها مالتي جامعة نمدني يومانتا أو عوان وفردينوينا سيرتيفيكيت قادنا عطينتي علمي قاينو برناي فرق ويباو دحيا جامعة رواكو أمانا يا لذلك إيو شهودي قايكو بحسي إن أي مركز سو سارتو تعب كأرضيدا وايو وحالي هذا فرسدوه انت بناك يالان يعني waxaan ahay ardayd kamida ardayda ka timaada Arabsiyo saasay tahay jaamacadda New Generation waxay ii suurta gelisay inaan aroor walba imaado isla Gabiley isla jaamacadda New Generation si habsan la'aana si hagar la'aana waxay iigu tala gashay inaan si raaxo leh u imaado aniga oo ka faa'iideysan raba ama nafsadeyda ka raba inay ka faa'iideysato jaaniska ay siisay saasay tahayna waxa ay siisay walibaatana cilmi waxa bilaadanka lagu beerto ah cilmi inta la noogu yimiday guriyahayagii la naga soo qaadayay ee la noo keenayay halkii wax la hooyigi wax la noogu dhigay jaamacadda New Generation runahaantii waxayna galiyeen wixii ugu qaalisanaa ee la isku hori jiray oo lacag ahayn oo waqti ahaa runahaantii namay ogeyn jaamacadaha kale iyagu noomay iman waqtina nagumay bixin jaamacadda New Generation baa naga warhaysay jaamacadda New Generation aad baan uga mahad celinayaa wana dowrkayga koobaad runahaantii sida quruxda badan leh ay waqtigooda noogu hureen annaguna waxaan ugu hori doonaa waqtigayga iyo maalkayga intaan arkay jaamacado badan baa jiro oo gobolkeena ka furan baa jira jaamacadan waxay ka duwan tahay jaamacadaha kale wali maynaan arkin jaamacad iyadu isku qabta kharashkeeda gaarigeeda hawsheeda macalinkeeda isku qabta wali maynaan arag oo ardayga intay ku doonto goobtii gurigii uu joogay intay ku doonto hada qofku soo barto waxa xushiis soo dhameystana goobtii guriga ku soo celisa oo hagarlaan ku soo celisa wali New Generation baa ugu horeysa halkaas ardaydan quruxda badan ay u dhamaadeen koorsooyinka ee caawa halka lagu siinayo shahaadada waxa leeyahay Allah idinku anfaco horta cilmiga aad barateen cilmigani wuxuu ahaa cilmi ardayda ka lumiyo waqti dheer marka ay ka soo gudbaan secondary-ga ee ay u gudbayaan jaamacadda waxay ku dawaqaan ardaydu kala doorashada kulliyadda ay gali lahaayeen iyo inta ay la qabsanayaan kulliyadaasi jaamacadda waxaan uga mahad celinaynaa oo ku amaanaynaa oo ku hambalyeeynaa fikirka fiican ay qaadatay ee ay u hibaysay ardaydeeda wax la isiyo waxa ugu fiican oo waxa ugu qaalisan waxa weeyaan cilmi waxa la idin geliyay cilmi waxa la idin geliyay tabac intaana ammaanteeda waxa la jaamacadda New Generation waxa leeyahay waa ku mahadsan tahay waana ku amaanan tahay waxaan leeyahay ardaydiinan qaatay koorsooyinkan mar ay jaamacaddu ay bixinaysay ee Gabiley Wajaale Arabsiyo aad iyo aad baad u nasiib badan tihiin waxa ugu qaalisan wax la isa siiyo information in laga siiyo wixii markaa mustaqbalkaaga khuseeya aad iyo aad baan markaa oo lagu mahad celinayaa jaamacadda New Generation garashada dheer iyo waxa weeyaan fikirka wanaagsan ee ay la yimaadeen ay kaga hormareen markaa jaamacadaha kale ee gobolka ka jira jaamacaddana waynu u mahadnaqaynaa runtii koorasyada ay bixisay waa waxyaabaha ay yar tahay runtii jaamacadaha in laga helo koorasyo bilaasha oo dadka ay ku dhiirigelinayso dhalinyartana waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa inay jaamacadda qayb ka noqdaan insha allahu tacaala علومتي ka faa'iideystaan aqoonteedana ay ka faa'iideystaan dhamaantii waad mahadsantii mar laba caaw madashan waxaynu isugu nimidnay
inaynu ku soo afmeerno waxbarashadii inoo socotay eenu ugu talagalnay ardayda ka soo baxday ee imtixaanka sugaysa fanfoorka inaynu ugu soo afmeerno ahmiyadda aynu ka lahayn courseski aan soo qaadanaynay in jaamacadda new generation faraceeda Gabiley campus ay u wadiyay ardayda ayaa ahaa sidii ardayda aqoontooda waxbarasho ee heer jaamacadeed kor lagu qaadi lahaa lagala siin lahaa warbixin waxyaabaha ay kula kulmayaan jaamacadda ee ay jaamacaddu kaga duwan tahay dugsiyadii sare ee ay ka soo baxeen waxaa xusid mudane guddoomiyey in labada degmo ee Arabsiyo iyo Gabiley ay qaadanayeen 3 kooras halka ay degmada Wajaale ay qaadanaysay 2 kooras waxaa jaamacadda New Generation ujeedada ugu weyn ay ka lahayd arrimaha ay tahay inaanu ardaygu culays badan ka dareemin sidii uu jaamacadda departmentka uu doonayay ama fakalka uu qaaday isleeyahay aanay culays badan ka noqonin oo inuu hadhow toole noqonin inaanu qaadanin department aan choice-kiisa ahayn ay kaga duwanaato jaamacadaha kale dee inay ardaydii la dareen noqoto oo barnaamij u soo bandhigto idinkuna aad baad mahadsantihiin si fiican baa u dhamaysateen waxaan aad idinku soo dhaweynayaa dhammaantiinba waa jaamacadda New Generation faraceeda Gabiley faraceeda Hargeysa iyo Burcaba meeshii ku dhowba inaad ka gali karto waa maray adag tahay qofku inuu isweydiiyo 3 sano jaamacadda ku jirta yaa ku hortaagnaan yaa ku hogaamin yaa wax ku sheegi laakiin New Generation waxay la tartantaa jaamacado badan public ah private ah jaamacadahana ilaa 50 in ku dhow oo jaamacadood baa ka dhisan Gabiley inuu ku sugannahay bay 3 ka dhisan yihiin 3duba aqoon bay bixiyaan aqoonta kaliya lagaga duwannahay ee jaamacadda New Generation aanu ka duwannahay kooran mayno waxa aanu hayno ayaa ka duwan waxay bixiyaan jaamacadda New Generation hal mabda oo kaliya ayaanu kaga duwannahay oo ah ardayga jaamacadda ku sugan inaanu aqoontii noogu yimid ee uu naga rajaynayay uu sideeda nooga helo haddii uu isagu noo ogolaado inuu ka helo muhiimadda iyo bishaarada jaamacadda New Generation idin haysa waxa weeyaan jaamacaddu inay idin diyaarisay kulliyad wal oo culum aad ka baranaysaan oo gobolkeeda iga furan tahay haddii ay noqoto kulliyadda caafimaadka oo yeelanaysa qayb walba oo suuragal ah qofku inuu mustaqbalkiisa ku qaato ama ha noqoto midwifery ama ha noqoto nursing ama ha noqoto public health ama ha noqoto pharmacology ama ha noqoto nutrition ama ha noqoto medical laboratory xilli walba iyo xirfad walba oo suuragal ah inada caafimaadka jaamacaddu way ku diyaarisay waliba waxay ku diyaarisay xilli iyo time ku haboon dhaqaalahaaga dadaalkaaga iyo kartidaada aanu imaado kuliyadan aan afkeeda ku hadlayo waa Faculty of Business and Economics waa fakal ka kooban 4 qaybood waa fakalka 4 qaybood ka kooban waxa ugu horeeya qaybta loo yaqaan Human Resource Management and Leadership waxa loo yaqaan oo ku xiga Accounting and Finance waxa ku jira Economicski waxaad ku baran doontaa Business Administration waa takhasusad kala duwan madashan meeshan quruxda badan leh iyo kuliyadan iskuulkan la yiraahdo Business and Economics waa meesha ay ka soo baxaan ka yimaadaan hal doorada adduunka meel kasta ay joogaan hogaamiya leaderska adduunka jooga meel kasta ay joogaan waxa ay ka soo kiraajirwadgareeyaan ay ka yimaadaan waa fiilka economiga iyo businesska iyo managementiska iyo xisaabaadka New Generation ma aha mid ku eg Gabiley oo kaliya Soomaaliland sidoo kale ku eg ma aha waa mid ka ballaaran intaaba waxa weeyaan si aad adiguna intaaba uga ballaaratay insha Allah waxaan kugu soo dhaweynaynaa New Generation dhalinyarta waxa weeyaan hadduu yahay hoggaanka kuliyadaha iyo hadday yihiin waxa weeyaan gudoomiyaha campuska Gabiley iyo waxa weeyaan gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadda New Generation Women iyo Cabdiwaasic dhammaan waa dad da'yara waxa weeyaan waxayna ku soo kordhinayaan wax wanaagsan oo waxa weeyaan adigana dan ku waa insha Allah run ahaantii gobolka Gabiley markaan halkaa ka soo galo kantaroolka ay ku kala noqdaan gobolka Maroodijeex waxaan u heelanahay inaanu isbedel la taaban karo ku samayn karnay Soomaaliland gudaheeda waxa marxaati ka jaamacaddu iyadoo dhammaan dusha u ridanaysa waqti kasto adag oo uu roobdaayo isticmaalaysa gaadiidkeeda waxaanu ka soo qaadnaa ardayda guud ahaan degmooyinka kala duwan ee uu gobolka kooban yahay
annagoo aan charge garaynayn wax transportation aan charge garaynayn sidoo kale waxaanu matalan markaan ardayda tababarayno professorska aanu adeegsanayno ee facilitatorska waa jaamacadda oon aad iyo aad ugu mahadnaqayo kharashaad kasta oo ay jaamacaddu adeegsanayso kuma noqono ardayga jaamacaddu iyadaa isku qabta waxaanu u dan leenahay mustaqbal fog baanu ka leenahay gobollada somalilan aanu ka leenahay ma nihin dad ganacsadayaala laakiin waxaanu doonaynaa horumar kasta inaan waddankayga la qaybsanno mudane guddoomiye jaamacaddu waxay ka qayb qaadataa dhammaan duruufo kastoo ka jira gobolka ooy ka mid yihiin dhinaca qurxinta magaalooyinka waxaanu ka qayb qaadannaa dhinaca tababarrada waxaanu ballan qaadaynaa ka jaamacad ahaan maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba inaannu si buuxda ula shaqayn doonno wax kasta oona loola baahdana aanu diyaar u nahay ayaannu ballan qaadaynaa macallimiinta jaamacadda new generation iyo maamulkeedaba inaan ku bogaadiyo tallaabadan quruxda badan ee ay qaadeen oo ah inay u noqdaan iyagu hagayaal wanaagsan ama furo fiican oo ay ardaydaasi ku kala dooran doonaan kuliyadaha anfacaya naftooda dalkooda iyo diintoodaba inay u noqdaan iyagu jidkii ay mari lahaayeen ee ardaydaasi u caddayn lahaa kuliyadda ay qaadanayaan baltayada ay leedahay iyo tira ahaan waddanka siday ku tahay iyo ujeeddada ay u qaadanayaan nooca ay tahayba inay sii baraan runtii aad iyo aad baan u hambalyaynayaa jaamacadda new generation wax weyn bay runtii idiin qabatay waayo waxay idiin noqotay tilmaan bay idiin noqotay ardaygu markuu foonfoorka soo dhammeeyo uu doono inuu jaamacad galo inta badan waxaa ku yimaada khalkhal jiha wareera haddii qofku marka hore ama sii qorshaysan fakalkuu qaadanayo amba waalidkii la talin inta badan qofku hadduuna inta hore qorshe adag ku gelin jaamacadda jiha wareer baa ku dhaca waxaan idinkula dardaarmaya un dhammaanteen inaynu ku dadaalno mustaqbalkeenna dadaacada ay noqonno maantii markaad waxbaratid baa wax badan lagu tilmaami doonaa halkan intaasoo dhan laydinkama odhan karo in yaroo kooban baa maanta laydin odhan karo marka dhammaantayo farxad bay noo tahay maamulayaasha dugsiyada iyaguna halkan nala fadhiya maamulaha librariga iyo dhammaan madaxda kale halkan nala fadhiya dhammaantood waxay jecel inaad qurux badnaataan taasna waxay ka imanaysaa markaad waxbarataan waxbarashada aamintaan wax lagu farxaa muddo yar ka hor gobollada guddoomiyaasha ka socda dad intan ka da'weyn bay ahaay laakiin guddoomiyaasha gobollada ka socda waa rag da'ya waana sababta keentay inay nagala soo qayb galaan qolooyinkii hore lama arki jirin laakiin qoladana waa kuwa ay nala joogta taas waxay ku tusinaysaa dhalinyartu inay firfircoon tahay dhalinyartu inay jeceshahay inay wax badan bedesho jaamacaddana magaceeday ka muuqataa jiilka cusub iyo dhalinyarta inay ka qayb tahay aad baad u mahadsan tihiin insha allah waxaan rajaynaynaa farxayntan ka badan iyo qiimayntan ka badan mustaqbalkiina inaad ku heshaan asalaamu calaykum waa laga yaabaa dhowr arrimood in loo baahan yahay oo eegtaan oo istiraadaan talow de xildhibaan weyn baa yimid oo gobolkiiya inuu hadlaan la eegayey inuu wax badan u soo gooyaaba la eegayey taywan baa waxyaabo badan qaybisay scholarship kaloo badan baa jiray maxaa laga yeelayaa jaamacadaha baraafitka taana bulshadayadii baa tiyey waxaanu ka qabanaynaa wax kasta oo aanu ka qaban karno si weliba aanay mushkilad uga dhex abuurmin jaamacadaha publica iyo kuwa privatka aanuna samayno oo hirgelino shuruucdii public private partnership-ka ahaa oo loo baahan yahay oo wada shaqayntii iyo easemankii qaran ahaan samaynaysay taasina kolley waa hawl kale inoo taal laakiin qodobka weyne ugu muhiimsane caawa laga dhawaajiye laysku raacay waxa weeye ballantaa la idiin galay ee gaadhi leh ee socod leh ee ixtiraam leh ee su'aal jawaabteed leh ee habla soo qaad leh ee weliba dhowra leh ee hooyadii tixgeliya leh ee wiilkaa la soo qaada leh ee yuutalandoole leh ee aqoon ha hela leh ee weliba dadaalka badanee laynoo soo galay in aa idinkuna abaalkeedii celisaan oo jaamacadda new generation ka dhigtaan the new generation through education to the development of Gabiley region. And that's what we need from you. waxaan filayaa jaamacaddani de way idiin sheegtay ama way inoo sheegeen wixii ay idiin qabteen anigoon anigu u kala hiilinaynin jaamacadaha haddana iyagaa isu keen sheegay idinkana waxaan filayaa in ay si qurux badan oo hagar la'aana
oo aanay hanti iyo dhaqaale midna idinka qaadin oo iyagu toodii idin gelinayeen ay wax idin bareen taasi waxay tilmaamaysaa in iyaguna ama fariintu ay tahay waxii ay idinka gashadeen inaad idinkuna ugu abaalgudaan baan filayaa inay doonayaan waana si ay tahay waayo jaamacaduhu shacbiga Soomaaliland way u siman yihiin haddaba mid waliba waa siday isaga iibiso iska kiin iibisay jaamacadda New Generation ilaahay waxaan idinka rajaynayaa inaad sidaa iyo si ka fiican dalkiina iyo dadkiinaba ugu anfacdaan aqoonta baran doontaan waxaan filayaa hal bila ayay wax idin soo baraysay jaamacaddu waxbarashada ay idin baraysay waxa weeyaan sidii aad ugu sii gogol xaaran lahaydeen marka imtixaanku insha Allah bidulaahi kariim idin soo baxo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaad dhammaantiin ku wada guulaysataan in aad jaamacaddan ay diyaar idin tahay taasi waxay ku xidhan tahay waxa weeyaan idinka iyo doorashadiina nin kasta oo soo kacay oo jaamacaddan ka tirsanay waxaan filayaa inuu iska kiin iibinayay waxaanay tahay dee maadaama ay idinku tabceen aanu yara xagliya in yare dee inaa u hiilisaan oo wixii ay idin gashadeen aad ugu abaalgudaan waa Muuse Xuseen Xasan Sam News TV gobolka Gabiley